kasta oo hadlay aniga kelmado gaabanaan ku darsanaa oo aan u jeedinayo dhowr qofood oo kala duwan waxaan aniga caddaynayaa ilaahayow adaa markhaati ka ah allaahuma balaqtu fashalan dhahay anoo xildhibaan koonfur galbeed ah oo u dhaartay dalkan ka mas-uul ah bulshada koonfur galbeed inaan raalli ka noqdo in lagu tunto xaquuqdii oo nooc kasta lahayd ay lahayd koonfur galbeed hadday dhaqaalo noqon lahayd haddii wixii dhaqaalo oo looga shaqayn lahaa amniga shacabkii caafimaad wixii looga shaqayn lahaa wixii waxbarasho looga shaqayn lahaa waxay noqdeen wax jaab shakhsiyeed ku xaroonayo dowladda dhexe waxaan u sheegaa koonfur galbeed bulshadeeda lacag ma siiside shaksi ayaa lacag siisaa lacagtaasi mid oo shacabka koonfur galbeed loogu dareeya ma aha mid ay xildhibaano wax ka helaan ma aha mid shaqaalo dowladeed nooc kastaba ha noqdo uu wax ka helo ma aha mid haddii alle uu ku rooyahay ciidamada sida ba-an baahida ku shaqaynaya ee ka maalin walba qoryaha la goosanaya duruuf awgooda wax laga siiya ma aha taa aniga waxa aan ku hadlaya haddii aad u baahan tihiin haddii aad dowladda dhexe tihiin waxaad u soo dirsan kartaan caasimada kumeel gaarta ee gobolka baay guddi oo arrintaas idin xaqiijiya beesha caalamka madaxda sare ee xukuumadda federaalka sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiye jawaari ama labada aqal ee baarlamaanka ah waxaan baaq ugu jeedinayaa madaxweynihii koonfur galbeed inuu ku tuntay wixii dastuur ahaa iyo sharci iyo nidaam ee dalka u yaallay hadday mas-uuliyad idinka saaran tahay oo beri lidin weydiin doono bilaahi calaykum waa idin soo bandhignay soo farageliya ee arrintan kaale wax ka qabta war aawey koonfur galbeed ma jira miya aqoon-yahan ma leh miya siyaasi male miya aawe siyaasiyiintii iyo aqoon-yahanadii iyo koonfuryahanadii shacabkii koonfur galbeed aawe war jaaliyihii koonfur galbeedow waxaan idin leeyahay koonfur galbeed shacabkeedii iyo hantideedii iyo dhulkeedaba badbaadina u baahan yahay faruuxu ka bixi rabaayo hala soo gaaro wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu